السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أخيارتا نداونا إساء دمانتين ميلو با جوكتان وقت كاس أي جوكتان با
waxaan idinku salaameynaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa mar kale iyo barnaamijkii falanqaynta toddobaadka oo aad nooga barateen xiliyadan oo kale inaan hawada aan idinkaga soo baahino insha allahu tacaala. barnaamijka sida xalay balanteenu ahayd, waxaan ku balansaneen barnaamijka falanqaynta toddobaadka inaan caawa aan ku soo qaadano waxyaabo badan quseeya danaha bulshaweynta Soomaaliyeed ee qaaradaha adduunka kala jooga. marka insha allahu tacaala barnaamijka waxaa alaaba falanqeey inooga ah saaxiibkii Cabdiqaadir Zeen oo mar walba u diyaarsan in barnaamijka uu hirgalo dadka ku taxan page-kana uu ka haqabtiro insha allahu tacaala. waanu ku mahadsan yahay barnaamijka. qodobo badan ayaan insha allahu tacaala dhowr inkastoo waqtiga xoogaa uu xiriir noogu noqday mar kale, laakiin laba qodob oo xasaasi ayaan insha allahu tacaala aan ku soo qaadan doonaa. marka hore soo dhawow saaxiibkii Cabdiqaadir Zeen. waa dhawahay saaxiibkayga Ismaan Sheekh Cali oo ku salaamay adiga iyo daawadayaasha sida tooska ah nooga daawanaya barteeni Facebooka. dhammaan waxaan idin leenahay soo dhawaada barnaamijkana la wadaaga dhammaan asxaabtiina iyo gruubyada aad xubnaha ka tihiin. mar kale waa kaaga mahad celinaa Cabdiqaadir Zeen. waxaan u gudagalaynaa barnaamijkii falanqaynta toddobaadka. sida aan wada ognahay Soomaaliya dhibaatooyin badan ayaa haysta oo gudaha iyo dibaddaba ah. kasoo bilow dagaaladii sokeeye markay dhaceen 1991kii. dhibaatooyin badan ayaa waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa shacabka Soomaaliyeed guud ahaan ka haysta. runtii dhibaatooyinkaas oo ah dhibaatooyin oo hadba heer soo maraya, runtii mid gaar ah iyo mid guud ahaanba ay isla wadaagaan shacabka Soomaaliyeed meel bay joogaan. marka dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah faragelin lagu hayo waddanka Soomaaliya dhinaca siyaasadda, dhaqaalaha, xuduudaha iyo nabadgelyada dhinac walbaba. marka caawa barnaamijkeen wuxuu ku saabsan yahay maadaama Soomaaliya faragelintaas lagu hayo, maanta wax hadda taagan oo qadiyadda maanta taagan ay tahay dhinaca waddanka Soomaaliya iyo Kenya oo isku haysta muranka badda. marka murankaas badda muddo dhowr sano ayuu soo jiitamayay, xiliyo badan wuu soo maray ilaa iyo maanta aan barnaamijkan live aan ugu jirnana weli dhibaatadii ama xurguftii way taagan tahay. inkastoo dowladda Soomaaliya dowladda Kenya ay iraahdee ay waxyaabo badan oo culays badan ay dowladda Soomaaliya tii hore iyo tan dambe hadda aan joognaba ay ku sameynaysay. marba heer markay soo gaartaba kole hadda waxaan taagannahay caawa oo bisha ay tahay bisha 6 September 2019. marka Cabdiqaadir Zeen mar labaad soo dhawow. su-aasha ugu horeysa oo aan arrintaas kaa weydiinaya waxay tahay muranka badda ee Soomaaliya iyo dowladda Kenya halkuu ka soo bilowday, muxuu salka ku hayaa, sanadkuu ahay iyo waxa kalifay in dowladaha Soomaaliya iyo dowladda Kenya inay arrinta badda ay isku qabsadaan. adiga waa horta muranka badda Soomaaliya waa 10 sano ku dhawaad waaye haddii aan fiirino oon taariikhdii dhaweyd dib u jaleecno. muranka oo badda wuxuu hadda ku dhow yahay 10 sano, wuxuuna soo bilowday dowladdii kumeel gaarka uu madaxweynaha ka ahay Sheekh Shariif Sheekh Axmed. waxay ahayd 7 Abriil 2009. murankaasna wuxuu ka bilowday wasiirkii qorsheynta Soomaaliya
cabdiraxmaan cabdishakuur iyo wasiirka arrimaha dibadda Kenya waqtigaas oo la dhihi jiray magaciisii Wetangula ayaa waxay kala saxiixdeen heshiis is-afgarad oo mataqaanaa memorandum understanding la dhahayo heshiiskaas ay kala saxiixdeen oo ku saabsanay dhinaca badda meeshaas ayuu ka soo bilowday mataqaanaa muranka badda Soomaaliya macnaha waxa taariikhda inta aniga aan ka ogahay waxa waaye laga soo bilaabo April 7 2009 waqtigaas uu soo bilowday muranka markii heshiiskaas uu dhacay sida aan idin sheegay danka Kenya waxaa u saxiixay wasiirkoodii arrimaha dibadda Soomaaliyana waxaa u saxiixay wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga oo waqtigaas ahay cabdiraxmaan cabdishakuur marka heshiiskaas markuu dhacay waxaa dhacay runtii aad baa looga hor yimid markii heshiiskaas uu soo saxiixay cabdiraxmaan cabdishakuur weliba baarlamaanka Soomaaliya waxaa ka dhacday dood aad iyo aad u kululeed dood aad u kululaa ka dhacday oo looga soo horjeedo heshiiskaas la soo saxiixay oo cabdiraxmaan cabdishakuur soo saxiixay heshiiskaas is-afgarashada aadaa looga soo horjeestay baarlamaanka waxa ay qabteen kulan aan caadi ahayn oo arrintaas lagu laalayo xitaa baarlamaanka kulankaas dib looma dhigin markiiaba lagu kala baxay sida aniga aan ogahay marka intaas horta waxa waaye muranka meesha uu ka soo bilowday iyo sidii looga hor yimid dawlad iyo shacbi ahaanba mila socotaa Cusmaan si fiican aan kula socdaa oo kumaadsan tahay sida waa runta taariikhda waa sida aad sheegtay iyo habka runtii uu ku soo bilowday iyo waqtiga xilliga markii la fiiriyo madaxda waddanka markaas talada waddanka haysay inkastoo dawladdaas markaas ay ahayd dawlad kumeel gaar ah oo TFG lagu magacaabi jiray oo madaxweyne uu ka ahaa Sheekh Shariif Sheekh Axmed ra'iisul wasaarena uu ka ahaa Cumar Cabdirashiid Sharmaarke iyo wasiirkiisii qorsheynta iyo xiriirka caalamiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame runtii sida aad warbixinta aad noogu soo gudbisay waa sida aad sheegtay runtii bal qodobkaas qaybtaas markaan ka gudubno maadaama hadba heer ay soo maraysay oo arrintan muddo ay soo jiitamaysay bal dowladdaas ku xigtay oo 2012kii doorashooyinkii waddanka ka dhacay xildhibaanadii mar labaad xildhibaano kale la doortay dawladdii oo complete isbedeshay golihii wasiirada isbedeleen xildhibaanada isbedeleen madaxdii waddanka ugu sareysan isbedeleen bal 2012kii markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo xilka qabtay iyo dawladdiisii kabinetkiisa oo asaga la shaqeynaysay xildhibaanadii markaas joogay ayaga bal ilaa ay kaalintee ayay ka soo qaateen maadaama dawladdii TFG-da ay arrintaas ay la soo heshiisay Soomaalida shacab gudaha iyo dibaddaba ay aad ugu soo horjeesteen runtiina ay mafaaji'a ku noqotay ama kaag ay ku noqotay baarlamaankana sida aad sheegtay guux weyn iyo mucaarad weyn ay yani arrintii ay dhalisay lagu guulaystay in la laalo marka dawladdii xasan sheekh maxamuud 2012kii wixii ka dambeeyay bal dawladdaas inta ay jirtay 4 sano ee waddanka ay maamuleysay ayagana maxay kaalin oo intee la eg ay ka qaateen run ahaantii dawladda xasan sheekh maxamuud waxa lagu xasuusan karo waxay ahayd dawladdii
kiiskaas geystay maxkamadda caalamiga ICJ waxaa geysay kiiskaas dowladdii xasan sheekh maxamuud ayadaa furtay dacwada oo geysay mataqaanaa maxkamadda caalamiga dacwadaas weliba waxa ay goobta maxkamadda tagay xeer ilaaliyaha guud axmed cali daahir oo markaas si toos ah warfideenka ugu sheegay in kiiskan arrintan la hordhigi doono maxkamadda arrinteedina ay noqon doonto mid lagu kala baxo maxkamadda caalamiga yacni dowladda xasan sheekh maxamuud tilaabada muhiimka ah oo runtii taariikhda ku xusan waxa waaye iyada ayaa furtay dacwada badda ka furtay maxkamadda caalamiga mataqaanaa magaalada Hague adigoo mahadsan runtii dowladda dowladda xasan sheekh maxamuud oo 2012 xilka haysay waxaan filaa in ilaa iyo muddo ayaga laftirkooda ay caqabad badan ay kala kulmeen geesmada maxkamadda mucaarad badan oo dowladda Kenya iyo culays badan dowladda Kenya ay soo saartay laakiin ay ku adkaysteen in ay keiska Soomaaliya iyo Kenya badda muranka badda inay ku adkaysteen in maxkamadda caalamiga Hague inay yani ay ku kalsoonaadaan marka qodobkaas markaan dhinacaas ugu soo gudubno runtii waa ku mahadsan yihiin dowladdii waqtigaas jirtay 2012 ilaa iyo 2000 ilaa iyo 16 ama 17 horaanteedii marka waa ku mahadsan yihiin shacabka Soomaaliyeedna maanta sida hore aad u sheegtay abaal weyn ayay u hayaan waana waajib qaran oo dastuuri ah in la xifdiyo xuduudaha badda iyo beriga iyo bad iyo hawadaba marka runtii waan ugu mahad celinaynaa juhdiga badan ay ku bixiyeen weliba waxaan ugu maqaalo ah in malaayiin dollars ay in dacwadaas ay ku fureen marka haddaan ka gudubno dowladdii xasan sheekh maxamuud waxaan soo galnay waqti dambe oo 2017 uu madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare xasan cali kheyre oo hadda ilaa iminka ay waddanka ayaga ay maamulaan oo dowladdooda hadda ay shaqaynayso ayaga laftirkooda waxay noqotay qori isku dhiib ayay noqotay arrinta badda Soomaaliya iyo Kenya bal ayaga doorkee ayagana ay ka qaateen kulay waa sidaan hor u sheegnay waa qori isku dhiibkaas ayagana intee la eg ayagana ay soo gaarsiiyeen runtii waa sida aad sheegtay waxay ahayd silsilo isku xiran laga soo bilaabo maalintay bilaabatay oo xilli dowlad ku meel gaar ah haddana nasiib daro lagu fududaaday in heshiis is-afgarasho la saxiixo dowladdii farmaajo maxamed cabdullaahi farmaajo yacni doorkeedu waxay ahayd in ay ku adkaysatay oo go'aankeedii uu ahaa mar walbo in arrinta khilaafka badda lagu dhameeyo maxkamadda caalamiga mowqifkaas ayay mataqaanaa ku adkaysatay xeer ilaaliyaha guud qaranka axmed cali daahir oo haddana mar kale dowladdii farmaajo markii ay dhalatay ku celiyey in goobta lagu kala baxaayo murankan ay tahay maxkamadda caalamiga in uusan jirin waddo kale oo arrintaas lagu xalinayo keliya ay tahay waddada
in maxkamadda caalamiga heeg lagu dhameeyo murankan marka cadaadis badan ay Soomaaliya la kulantay Kenya oo isku day badan samaysay tan walbo laakiin waxaa runtii marag madoonta ah dawladda Farmaajo ay mowqifkeedii runtii ku adkaysatay oo ay mataqaanaa arinta in lagu soo gabagabeeyo lagu dhameeyo maxkamadda arintaas markii dawladda Farmaajo ay ku adkaysatay waxaa dawladda Kenya ay la soo noqotay safiirkeedii Soomaaliya safiirkii Soomaaliya oo Kenya joogina waxay ka codsatay inuu dalkiisi dib ugu laabto taas waxa waaye waa bishii Febraayo 2019 marka isla markaana waxaa jiray cadaadis badan dadaal badan ilaa iyo hadda dawladda Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxyaalaha runtii uu ku amaanan yahay waxa waaye mowqifkiisi oo ahaa ama dawladda mowqifkeedii ahaa in arinta lagu xaliyo maxkamadda caalamiga weliba dawladda wax tanaasulaad ah taas kama samaynin mowqifkeedii ayay ku taagan tahay ilaa iyo hadda aad u mahadsan tahay Cabdiqaadir Zeen sida saraaxada leh oo runtii aad u kala dhigdhigtay oo taariikhdii ay soo martay dawladaha Kenya iyo Soomaaliya murankooda ee badda runtii waxaan u maleynayaa inaad aad xogaal ugu tahay oo sida aad taariikhaha iyo nidaamka iyo shakhsiyaadkii markaas kaalinta weyn ka qaatay aad yani noogu soo bandhigtay waan kaaga mahadcelinaa runtii sida sharafta leh wanaagga leh aad barnaamijka aad noogala qayb gashay oo aad warbixintan kooban oo runtii micno badanna leh aad noo soo gudbisay waxaa kaloo aan iga su'aal ah dawladda Kenya geed dheer iyo geed gaaban bay u fuushay arinta muranka badda ee Soomaaliya in maxkamadda caalamiga adduunka ee Hague in yani laga soo wareejiyo oo loo soo celiyo gacanta labada dawladood ee Kenya iyo Soomaaliya sidee kula muuqataa arintaas cadaadiskaas ay sameynayso ma kula tahay inaysan rajo weyn oo intaas badan aysan ka lahayn maxkamadda caalamiga adduunka in ayaga ay ku guulaysan karaan maadaama cadaadiska dawladaha geeska Afrika iyo Soomaaliya ay ku saareen ay tahay in dawladda Soomaaliya ay kaalin ururka midowga Afrika ay ku yeeshaan kaalin kaalin dhexdhexaad marka ma kula tahay dawladda Kenya mustaqbalka in ay ku guulaysan karto kiiskan badda ee Soomaaliya kala dhexeeya maalmihii la soo dhaafay xeer ilaaliyaha guud qaranka Axmed Cali Daahir wuxuu runtii carabaabay u caddeeyey in dawladda Soomaaliya ay ku guulaysan doonto kiiskan sida dawladda Kenyana ay u muuqato cabsida iyo walwalka dawladda Kenya waxay Kenya dareensan tahay in arintan badda looga adkaan doono dawladaha Afrika laftirkoodii arintan ku jiro waa ay dareensan yihiin in dawladda Soomaaliya ay ku guulaysan doonto isla markaana iyada ah qof waddanka xaqa u leh baddaas murunka ka taagan maanta warbaahinta waxay baahisay maanta oo 6 September ururka midowga Afrika qoraal uu soo saaray
waxay dalbadeen in Kenya iyo Soomaaliya murankoodii dhinaca badda macnaa si nabad ah lagu xaliyo oo arrintaas markaa fiiriso yacni waa wadda kale aan ahayn maxkamadda caalamiga mana filaayo dowladda Soomaaliya arrintaas horey ayay uga jawaabtay arrin noocaas oo kale ah in haddana mar kale dowladda Soomaaliya ay aqbali doonto gorgortan kale ama wadahadal inay ka gasho dhinaca badda macnaa dowladda ilaa iyo hadda mowqifka ay ku taagan tahay waa hal mowqif kaasoo ah in arrinta badda lagu kalsoonaado go'aanka ka soo baxa maxkamadda caalamiga ee Hague taas waay marka arrinta Soomaaliya marka golaha amniga iyo nabadda midowga Afrika codsigan ka yimid macnaha waxay sheegeen in ergey gaar ah loo magacaabo Soomaaliya arrimo noocaas ma filaayo inay wax badan ka bedeli doonto mowqifka Soomaaliya ah in arrinta badda lagu xaliyo maxkamadda Kenyana ilaa iyo hadda sidaa aan aragno kalsooni iskuma qabto mana yacni jecla in arrinta lagu soo gabagabeeyo maxkamadda caalamiga sidaa hadda muuqato aad umahadsan tahay cabdiqaadir Zeyn anigoo weli barnaamijka aan ku guda jirno khaasatan arrinta muranka dhaliyey badda labada wadan ee Kenya iyo Soomaaliya ilaa iyo maxkamadda Hague ay arrintaas ay taagan tahay walaalaha khaaliga ah barnaamijka nagala socda barta Facebook qaybaha kala gedisan warbaahinta banaadiriga waxaan ka codsanaynaa ama aan ka dalbanaynaa inay walaalaha kale u sheergareeyaan barnaamijkan hadduu dhaafo ay iyagana insha allahu tacaala ay waqtigoodii ay daawan doonaan marka uu barnaamijka uu ka baxo live-ka marka insha allahu tacaala waxaan idinka rajaynaynaa in sheerka aad insha allahu tacaala aad badin doontaan waxaan kaloo asxaabta aan u ballan qaadaynaa wax yar kadib in khadka telefonka qofkii rabo barnaamijka in aan insha allahu tacaala aragtidiisa iyo fikradiisa uu kusoo gudbiyo maadaama arrintan ay tahay arrin Soomaali dhan ay ka wada dhaxayso qof walbana fikrad iyo wuxuu ku kordhin karo uu halkan uu kusoo gudbisan karo marka insha allahu tacaala shaashadda insha allah mar dhow ayaad ka daawan doontaan telefonka aad kala soo xiriiri doontaan marka haddii aan barnaamijkeen aan usii guda galno waxaa dhacday sida hadda ugu dambeeyey aad ka dhawaajisay ururka midowga Afrika golihiisa nooc walba ha lagu magacaabo amniga iyo siyaasadda iyo nabadgelyada iyo IGAD iyo wax walba ha lagu magacaabo waxaad moodaa in ay ka badbadiyeen oo ay yiraahdeen mar walba markii ay maxkamadda arrinteeda ay soo dhawaataba inay mar walba ay dhahaan waxaan rabnaa in dowladaha Soomaaliya iyo Kenya murunkooda badda inaan wada hadal aan ka galno marka ma kula tahay ayaga laftirkooda in xagga Kenya ay u xaglinayaan ururka midowga Afrika sida hadda kolay muuqato oo qaabka dowladda ay wax u rabto oo ah in maxkamad lagu kala baxo arrintana wadda sharciga ay marto marka qaramada ururka Afrikana ay raadiyayaan wada hadal waa la dhihi karaa xoogaa in arrintaas uu keeni karo shaki oo dadka anagoo kale shacab Soomaaliyeed bulshada noocyadeeda kala duwan uu shaki gelin karo waxaa dhacay dowladda Soomaaliya sida adduunyada oo kale markii uu muran iyo dood uu yimaado waxa adduunyada ay ku kala baxaan meelo badanna hore loo soo arkay maxkamad ayaa lagu kala baxaa maxkamaddaana
wax hadda gorgortan iyo doodka imaan kara ma aha go'aanadeediina waxa waaye mid runtii sharci ah marka arrintan oo dowladaha afrikaanka iyo waxa ay wadaan waxa waaye xoogaa dadka bulshada wuxuu gelin karaa shaki iyo muran laakiin waxaan rajaynaa dowladda Soomaaliya iyada laftirkeedii ciyaartan cusub Afrika inay iyada laftirkeedii si cajiib leh oo aad u qurux badan ugu dabaalan doonto siyaasad fog oo aad u jaango'ana la imaan doonto ayaan rajaynaa aad u mahadsan tahay mar kale anigoo isla qodobkan ku jirna waxaa dhacday dowladda Kenya maalmihii ugu dambeeyay inay ku dhawaaqday kalsooni daro inay ka muujisay aqoon-yahanadii ama xildheerayaashii ama looyaradii ayaga u doorteen in oo arrimaha badda ay kala hadlaan oo ay u dirsadeen maxkamadda adduunka ee Hague waxaa dhacday marka in ay qaarkood ay bedeleen oo badankoodii ilaa iyo 6 xirlaali ama looyar ay bedeleen oo ay yiraahdeen looyaradan sidii anaga aan rabnay iyo hawshii anaga sida aan ugu kalsooneen hadda kalsoonidaas kama qabno marka ayadoo sidaas ay tahay waxay dalbadeen in 12 bilood muddo sanad ah in dib loogu dhigo kiiska maxkamadda arrinta Soomaaliya iyo Kenya ee badda sida aan wada ognahay shalay iyo maanta sida maxkamadda ICJ-da ay ku dhawaaqeen waxay yiraahdeen muddo 2 bilood ayaan dib u dhignay dhageysiga maxkamadda bal arrintaas dowladda Kenya codsashada ay codsatay in dib loo dhigo ma isleedahay waa ku guuleysatay maya ma la dhihi karo dib u dhaca maxkamadan dib loo dhigay aniga aragtideedii ma dhihi karo waxay guul u tahay Kenya marka hore waqti dheer ay dalbatay sida uu xaqiijiyay safiirka Soomaaliya midowga Yurub Cali Fakhi oo ay dalbatay in arrintan dib loo dhigo laakiin go'aanka maxkamadda wuxuu noqday 2 bilood 2 biloodna waqti runtii saas u dheer ma aha dowladda Kenya sida ay sheegtay waxay rabtaa in ay mar kale bilowdo oo dib arrintan ugu soo shaqeyso ay raadsato xildheerayaal iyo dad mataqaanaa xirfad dheer u leh dhinaca sharciyada iyo dhinaca difaaca marka arrintaas laftirkeedii wax badan soo kordhin doonto Kenya waa dareensan tahay cabsidan badan ku jirto waxa waaye Kenya way dareensan tahay go'aanka maxkamadda ka soo bixi doono inuu yahay mid yani Soomaaliya loo sharciyeynayo badda oo ay Soomaaliya ku guuleysan doonto Kenya shaki kama qabto laakiin Kenya waxay ku dayaysaa waddo kasto oo ay arrintan yani ku curyaami karto oo dib ugu dhigi karto yani dhinacii Afrika ay martay wadamo kale wadamada diriska iga meelo badan laakiin dowladda waxa aan ku kalsoonahay wax waaye mowqifkeedii in uu yahay mid sugan oo ah in arrinta lagu kala baxo maxkamadda caalamiga ee Hague taasaan aad iyo aad u mahadsan tahay Cabdiqaadir Zeyn sida sharafta la wanaagga leh aad barnaamijka aad u kala dhigtay isla qodobkan anagoo weli ka bixin dowladda Kenya dadka Soomaaliyeed ama qaar ka mid ah shacabka dalka Kenya iyo qaar ka mid ah shacabka Soomaaliya waxay aaminsan yihiin in kiiska badda muranka ah ee Soomaaliya iyo Kenya ka dhex aloosan oo hadda uu hor yaalo maxkamadda adduunka ee Hague dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin in waqtiga ugu dambeeya dowladda Kenya
inay tanaasul ay samayn doonto taas ma ku muuqataa cabdiqaadir zayn wallahi aragti noocaas dad qabo oo waa jirtaa waxaa weli dhici karto in tanaasulaad kale iyo gorgortan kale iyo arrimo noocaas ah ay Kenya rabi lahayd in macnaha meesha laisku haysto in ay noqoto meel dowladda iyo Kenya dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya ay isku leeyihiin meel ka wada dhaxayso oo kale camal in laga dhigo adiga waxyaalo badan Kenya waa ay damacsan tahay laakiin waxa waaye arrinta dowladda Soomaaliya sidaan hore ku sheegay mowqifkeedii go'aanadeedii waa cad yahay dowladda ma rabto waxaan ahayn maxkamadda Kenya markii uu waxaan rabaa cabdiqaadir inaad ifahantid mowqifkaas waa sheegtay runtii waa arrin jirto laakiin ujeeddada waxay tahay ama su-aasha aan ku weydiinaya waxay tahay dowladda Kenya ma laga yaabaa waqtiga ugu dambeeyo inay kayska maxkamadda dhan ay joojiso oo isdhiibto oo tiraahdo aniga waxaan waa ka haray maxkamadda adduunka cidday doonto go'aan ha ka gaarto laakiin annaga insixaaban ka samaynay kayskan dhan waa ka baxnay oo dowladda Soomaaliya waan u tanaasulnay ma dhici kartaan ka wadaa waa dhici kartaa waxay ku dhici kartaa waxa waaye hadda dowladda Kenya waxa ay wadaa wax la yiraahdo habar wacasho wadamadan Afrika iyo dowlado ay gacan saar la leedahay iyo arrimo noocaas iyo waxyaalo noocaas ay ku jirtaa laakiin haddii meeshii ay noqoto biyo kama dhibcaan oo waxba kasoo naasa cadaaway waa ku khasbanaanaysaa in dowladda Kenya wejigan hadda muuqda weji ka duwan inay la soo baxdo waa suurtagal in ay la timaado aad u mahadsan tahay su-aasha ugu dambaysa isla qodobkan insha allahu tacaala aan kusoo gabagabayn doono ayaa wuxuu yahay dadka Soomaalida shacabka badanaa waxay ay la socdaan mowqifka dowladda federaalka ee Soomaaliya ee iminka jirta mowqifka hadda ay ka taagan tahay ee arrimaha muranka badda Soomaaliya iyo Kenya dad badan oo Soomaali ayaa aaminsan ayagoo sidaas og oo dowladda mowqifkeedu uu aad u adag yahay oo muxrij uu yahay oo ay ku adkaysanayso oo culeysyo badan oo xataa isku socodka dhinaca diblomaasiyadda faragelin oo gudaha wax walba oo ay intii karaankeeda ay samayn karto dowladda Kenya ay samaysay ay ku adkaysay dowladda Soomaaliya in arrintaas kiiska badda lagu dhameeyo maxkamadda adduunka ee Hague dad shacab oo Soomaali ayaa waxa ay aaminsan yihiin in ugu dambeyn sida dowladda culeyskan badan lagu hayo marka ugu dambaysa in dowladda federaalka ay ogolaato wada hadal arrintaas bal ka waran bal kolley hadda sida noo muuqdo dowladda wax wada hadal kama gelaynay dhaheen arrinta badda dhowr jeer ay ku celceliyeen xalilaaliya guud dhowr jeer uu ku celceliyey mowqifkoodana waa mid aan qarsooneen oo bannaanka yaal laakiin yacni meeshan qof walbo doono uu iska sheegaa Soomaali waa iska dhaqankeedii baraha bulshada waxyaalo kala duwan hadallo siyaasadaysan kooxaha sheegta mucaaradka ayaga laftarkoodii afkaar kala duwan iyo waxyaalo ay sheegaan laakiin waxa anaga aan u jeedno oo cad oo bannaanka yaal wax waaye dowladda mowqifkeedii inay ilaa hadda ku taagan tahay oo ay ka tanaasuleynin waxaa ugu dambeeyey oo xataa madaxda dowladda wasiirada qaarkoodii twitterka iyo facebookyada waxay ku soo qoraan taako oo dhulka Soomaaliya inay dowladda ka tanaasuleynin yacni wasiirka waxbarashada oo twitterkiisa ku soo qoray wasiir kalena waa arkay sidaas oo kale marka mowqifka dowladda waa cad yahay
laakiin wixii siyaasadaysan oo arrin iska siyaasadaysan waa arrin kale laakiin mowqifka dowladda ma filayno in isbeddel oo mataqaanaa arrintaas ku dhaco xataa arrintan isbeddel waxay ku dhacay kooxda mucaaradka laftirkoodii yacni arrintan badda yacni markii bilowgii iyo hadda isbeddel weynaa ku dhacay sababta isbeddelka keenayna waxa waaye arrintan ma aha arrin mucaarad iyo muxaafid maaha waa arrin dan guud waaye marka arrin aan yacni foolxumo iyo ceeb lagala kulmaayo waaye waa masiir yacni ummadeed waaye waa dhul mataqaanaa soomaaliya ay leedahay waaye marka wax oo lala dhudhuuman karo oo la siyaasadee karo ma aha aniga saasaan qabaa aad iyo aad ayaa mahadsan tahay cabdiqaadir zeyn waana kaaga mahad celinaa sida saraaxada leh ee barnaamijka aad yani igala soo qayb gashay qodobkaas koley waxaan filaa mowqifka arrintan badda in laga hadlo oo la falanqeeyo oo muddo yani waqti la siiyo waxaan u malaynaa in caawa iyo habeen dambe iyo habeen ku xigaba uusan nagu filnaan karin idaacadaha adduunka websaytyada iyo tviyada iyo wasaa'ilka iclaamka ee caalamkaba arrintaas khaasatan labada wadan aad iyo aad ay arrintaas ay ugu doodayaan oo maalin walba qoraallo iyo warbixin laga soo diyaarinayo marka insha allahu tacaala waxay kusoo kordho barnaamijyadan dambe insha allahu tacaala aan kusoo qaadan doonaa hadba arrimahan badda muranka dhaliyey ee soomaaliya kenya ka dhexeeya annaga laftirkeen wuxuu nagu yahay waajib oo runtii oo inaan u danqano oo dhulkeena baddeena iyo cirkeenaba inaan hawadeynaba inaan anaga wixii markaas aan nagala gudboon aan qayb aan ka qaadano marka insha allahu tacaala qodobka intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa haddii allah awoodda le ogolaado runtii waxaan rabnaa qodob waqtiga inta yar nooga haray bal inaan wax yar aan ayadana aan xogaa laba kelmad aan kaa weydiiyo maqaamka gobolka banaadir oo asagana sida muranka badda oo kale ah oo arrintan shacabka soomaaliya runtii khaasatan dadka degan gobolka banaadir ama magaalada muqdisho iyo nawaaxigeedaba ay aad ugu doodaan oo aad uga hadlaan oo mar walba dowladdii timaadaba dowladihii sheekh shariif iyo xasan sheekh maxamuud ha ugu dambeeyaan iyo tan hadda maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha ka yahay ha ugu dambeyso oo step ama waqti ay soo gudbaysayba marka arrintan maamulka gobolka banaadir ama maamulka ismaamul ama dowlad goboleed banaadir ay yeelato arrintaas maxaa soo celceliya isleedaha oo mar walba ay dadka ay ugu doodaan oo xataa dad mas-uuliyiin mar walba ay arrintaas ay usoo hadal qaadaan iyo shacabka ku nool gobolka banaadir qaarkood cusmaanow mar kale aad iyo aada umaasan tahay su-aal muhiim waaye horta maqaamkan soo noqnoqonayo iyo sheekooyinkan telefishinada iyo idaacadaha lagu baahiyo aniga waxaan u arkaa wax oo kacsi ah arrin siyaasadeed waaye dadka arrimahaas isku howlayo barnaamij gaar ah ayay ka leeyihiin ulujeedo oo dadka lagu maray habaabinayo iyo yacni hadaf kale ayay u socdaan maka aha yacni arrinta ay sheegayaan mid dhab ah aniga taasaan rumaysanahay mar walbo maqaamka muqdisho shirara lasoo istaagaa xitaa mararka qaarkood waxaa maqlaysaa maamulo iyo shakhsiyaad aan shuqul ku lahayn gobolka banaadir ayaa arrimahaas soo hadal qaadayo dhammaan hadalladaas haddaad isku gegeysidood isku celcelisid waa oo kacsi waa arrin siyaasadeed dan gaar ah laga leeyahay waay aniga taasaan qabaa laakiin soo xaq uma laha shacabka ku nool gobolka banaadir oo lagu qiyaasayo 2 milyan iyo bar ilaa 3 milyan xuquuqdoodii ay ku lahaayeen dowladda ama xuquuqdii matalaadda dowladnimo maadaama caasimaddii ay tahay dakhligii waddanka ugu badnaa meesha uu ka yimaado dowladdii ay degan tahay runtii intaasoo milyan dadna ay ku nool yihiin
marka soo xaq uma laha dadkaas inay ayagan xuquuqdooda maadaama Soomaali maadaama qabaa'il u kala baxday deegaan u kala baxday ilaa ay mentuulo ilaa iyo gobol ilaa iyo heer degmo loo kala baxay maamul la sameystay marka dadka oo degan gobolka Banaadir soo xaq uma laha in ayaga ay masiirkooda iyo dantooda iyo inay ayagana ay loo madax baneeyo oo lagu taageer inay maamul sameystaan horta Cusmaano wax waaye Muqdisho waa caasimada dalka waaye waa meeshii ay ka bilaawatay xorriyadda Soomaaliya waa meeshii calan Soomaali laga taagay waaye waa meeshii ay ka bilaawatay xornimo doonka raggii Soomaaliya xorriyey oo xornimada Soomaaliya raadiyey meeshii ay ku noolaayeen waaye waa meel martigelis jirtay Soomaaliya oo dhan waaye waa caasimadda astaanta Soomaaliya meeshii laga arkayay waaye meeshii Soomaalinimada ay ka bilaawatay waaye marka ma noqon karto tuulo kale ma noqon karto haddii marka oo laga hadlayo masiirkeedii iyo maamul u sameynteedii waxaa muhiim ah lama arrinaa muhiim ah in la ogaado arrinta koowaad waxa waaye magaaladaas horta caasimadda Soomaaliya waa shaki ma leh Soomaaliya oo dhanaana ku noolaan karaan Soomaali yani magaaladaas laga xigsahayo ma jirto laakiin magaalada Ilaahay subxaanahu wa tacaala dadoo ku beeray dad ayaa ku noolaan jiray dad ayaa macnaa magaaladaas sharafteedii iyo qiimadeedii iyo taariikhdeedii dad baa lagu xasuustaa xaqiiqada siday tahay waaye marka tan koowaad waxa waaye dadka magaaladaas u dhashay waa la ogyahay waana is yaqaaniin intaan tiro ordayso meelaha ka qeylqeylihooyo waa iska mataqaanaa sidaan kuu sheegay orkacsi iyo mataqaanaa dhibaatadii Soomaaliya ka dhacday wixii ka haray waaye yacni buuqaan socdo wixii dhibaatada ka haray waaye laakiin xaqiiqada haddii la rabo in maamul la sameeyo laba arrimood waaye arrinta koowaad in dadkii meeshaan deganaay ay wada hadlaan sida hadda ka dhacayso Galmudug sida ka dhacayso yacni meelo badan oo yacni maamul loo sameeyo dadka magaalada oo dadka ahlu beledka beledka loogu yimid meeshana in ay gogoshaas lagu wada hadlaayo qodobka labaad waaye inay dawladda fidiso waxaa dhan oo lala ordaayo iyo sheekooyinkan waxaan waa wax nooc oo fowda ah waaye sad bursi waaye mataqaanaa nin oo xataa waxaa arkaysaa maamul goboleed ka tirsan oo haddana gobolkaana kambeyn kale ugu jira macnaha xaqiiqada inaan ka hadalno waaye magaaladan dib in loo soo celiyo haddii la rabo maamulkeedu waa fudud yahay wax dhib badan ma ah dadkii deganaay in fursad la siiyo ma rabi caawa inaan dhaho hebelaa deganaay hebelaa ahay wax sugan waaye taariikhdaa laga heli karaa haddii aan taariikhda dib u jaleecno yaa joogi jiray magaaladan oo deganaay oo loogu yimid waa la wada ogyahay dadkaas inay kulmaan waxa kulansiihayana waxa waaye dawladda sida hadda dawladda ay ugu shaqeeyayso gobolada sida hadda socoto Galmudug ayaa Muqdishona laga rabaa adigoo mahadsan waa ka raali gelina inaan ka soo dhex galo magaalada Muqdisho waxay weligeed ahayd caasimadda Soomaaliya inta taariikhda la ogyahay caasimadana kulay hadba heeray soo maraysaa dadka ku noolna way soo kobcayaan dawladdii ay joogtay dad badanaa magaaladii soo degaayo oo 50 sano ama 40 sano ka badan xataa 60 70 sano dad deganaa oo hanti kule oo aad yani
runtii ku yani maal iyo xoog iyo wax walbaba ku leh caasimadda marka maadaama ay kobacaas ay samaysay oo magaca caasimaddan ay wadato dad baa aaminsan inay ayaga gooni u leeyihiin oo ayaga deegaankooda uu yahay oo aan gorgortan gelaynin dad kalena waxay aaminsan yihiin inay magaaladan la wada leeyahay oo Soomaali ay u wada dhaxayso marka sidee arrintaas dadkaas loo wada qanacsiin karaa oo yani macquul ay ku noqon kartaa in arrintaas mawduucaas meel la saaro dadkaas ordaayo oo isku dhex yaacay waxaa lagu qanacsiin karaa lama arrimood hal arrin wax waaye waddankan waxaa la sheegay inuu yahay federaal oo yani maamulo banaadirna federaalkaasay ka mid noqonaysaa taas mid waaye oo federaalkana waxaa mataqaanaa horboodi doono ama hoggaanka u qaban doono sida la og yahay dadka federaalkaas ka tirsan yani qof aan federaalkaas ka tirsaneen yani waa imaan karaa waa ku noolaan karaa laakiin maamulka dadka federaalka oo meeshaas u dhashaya maamul noqon karaa hadda matalan for example anigoo kale magaalada gobolka banaadir aan kasoo jeedaa fursad shaqo haddii gobolka banaadir ka soo baxdo oo aniga aan arji u qorto ama aan form buuxiyo waxa waaye oo nin kalena form soo buuxiyo oo gobol kala joogo waxaa la rabaa maamulka inay fiiriso labadan form ninkan halkuu ka socdaa ninkan gobolkiisi waa gobolka banaadir inay dowladda waxaa la rabaa ahmiyad gaar ah inay isiiso maadaama federaal la yiri maadaama aniga aan gobolkii u dhashay oo haddii aan gobol kala taga shaqo heleynin maxaa dhacay xeerkii iyo nidaamkii asaas noqday aada mahadsan tahay waqtiga oo ciriir noogu ah oo runtii maasha allah laba qodob oo xasaasi aan ka wada hadalnay runtii oo aad si maasha allah u kala dhigtay bal anagoo guntii iyo gabagabadii barnaamijka aan soo gaarnay su'aal kooban oo aan filayo inaa insha allah daqiiqad aysan kugu qaadanin ayaan rabaa inaan ku weydiiyo mararka qaarkood waxaa dhacdo mediaha dad inay shir qabtaan oo u doodaya sida hore aad ugu dhawaajisay masiirka gobolka banaadir ama xuquuqda gobolka banaadir inuu yeesho sida hadda adiga aan ka doodayn oo kale waxaa arkaysaa qof parliamentary ah oo baarlamaanka federaalka Soomaaliya xubin ka ah baarlamaanka oo ah xubinta sharci dejinta oo dastuurkii iyo nidaamkiina og inuu meel bannaan intuu soo istaago oo media uu soo istaago uu yiraahdo dowladda federaalka waxaan maamulka gobolka banaadir ama gobolka banaadir haddaan dowlad goboleed loo samaynin oo xuquuqdeena nala siinin yani annaga dowlad oo federal dowlad oo maxaan ku dhihi lahaa oo dowlad goboleed oo banaadir annaga dhisanayno qofka markaas yiraahdo oo xubin baarlamaanna ah oo ah ninkii ilaalin lahaa shuruucda iyo nidaamka bal qofkaas xildhibaannimadiisa bal ka war bal sharciga muxuu ka qabaa maadaama sharciga hore uu soo baratay macnaha ninkaas oo arrimaha noocaas samaynayo wuxuu jebinaa hay-addii sharci dejinta la baarlamaanka haddii maqashid waxaa la sharci dejinta hay-adda sharci dejinta uu ceeb ku yahay ninkaas noocaas oo kale ah oo yani xeerarka iyo nidaamka iyo dowladnimada ka hor imaanayo oo nooc fowda ah abuurayo wuxuuba yani qol xumo ku yahay inuu shakhsi noocaas ah ka tirsanaado hay-adda sharci dejinta dadka oo fadhiyaan baarlamaanka xildhibaanada waxa waaye dadka lagaga dayanayo waaye loo baahanya in lagaga daydo sharciga iyo nidaamka iyo kala dambeynta aniga waxaan qabaa gobolkan inuu la mid ahaado gobolada dalka kale haddii la dhahayo maqaamaa la sameeyaa maqaamaa lagu celiyoya
مقام معنى أهان إري عربي هو مقام المسجد إري عربي هو واو فاهمين عليس وحا هذا الرأي هاي يقولوا باهي للروا وحواي إن تدكي قول كان دقناي أي وضع هدلان تدكي قول كان دقنايني ولا أوكي ولا وضع يقانا يا وضع هذا السينايو وقوش وفيدنايو دولة سيدا حتى عوضان قلمدو كسعود أيا الله غير waxaan arbushaadaan iyo fowdadaan iyo sheekadaan iyo nin halkan ka soo qeelinaayo iyo xildhibaan kale oo xildhibaan arin siyaasadeed waay xildhibaan aragtid anaga maamul sameynayna laakiin asay ceeb ku tahay waayo shakhsi xildhibaan la dhahay waaye oo sharcigii ilaalihooyo waay meeshii sharciga lagu ilaaliyayo fadhiyo haddii asay sharciga ku xadgudbo waa arin foolxumo ee waaye waa arin ceeb ku ah waaye qaarkoodina waxaa laga yaabaa oo gobolka ka hadlaayaan gobolkana shaqo ku lahayn oo qaarkoodii laga yaabo gobolo kale laga soo doortay oo gobolo kale matalooyo oo haddana rabaan inay muqdisho horboodaan ayagoo u ordaayo qaab qabiil soomaaliya marka maanta waa laga soo daali waxaa loo socdaa qaab qabiil qaab ka duwan oo ah inay axzaab tartamaan marka haddii aan qabiilkii weli taagnaano waa nasiib daro aad iyo aad ayaa umahadsan tahay saaxiibkii cabdiqaadir zeyn waxaan joognaa gunti iyo gabagabada barnaamijka insha allahu tacaala maadaama waqti badan aan gelinay runtii barnaamijka haddii aan idin xusuusiyo habeen dambe waxaa jiro sida hore aan idinku sheegnay barnaamij kan ka duwan oo ah muwaadin soomaaliyeed la yiraahdo doctor fuaad caamir tarmuushi oo horey baraha bulshada ka soo muuqday asagoo ka cabanaya mas'uul ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ee Soomaaliya oo in muddo ah gurigiisa uu degan yahay gurigaas oo ah guri sanooyin ayaga milkiyadiis ay lahaayeen oo meel oo strategic ku yaalo family la yaqaano oo inay ayaga ay leeyihiin maragmadoonto ay tahay ayaa habeen dambe aan barnaamijka marti noogu ah oo si live aan rabnaa barnaamijka inaan asaga uu nagala soo qayb galo su'aalana ka weydiino oo insha allahu tacaala wixii dhibaato uu qabana oo bulshada Soomaaliyeed uu la wadaago annagana aan ka wareysano aniga iyo saaxiibkayga cabdiqaadir zeyn ayaa barnaamijkaas insha allahu tacaala isla habeen dambe xilliga magaalada London 8 fiidnimo waqtiga muqdishona 10 fiidnimo marka insha allahu tacaala waana saaxiibada ku xiran page-ka banaadiriga shabakadaha kulmisa ama dalada banaadiriga sidaas ayaan la socodsiinana iyo intii kale Soomaali weyn share gareysa marka barnaamijka insha allahu tacaala intaas ayaan ku soo koobaynaa kelmadda ugu dambeysa waxaan siinaa saaxiibkayga cabdiqaadir zeyn si aan barnaamijka aan usoo gabagabayno aad iyo aadaad umahadsan tahay warka waa sidaad u sheegtay habeen dambe barnaamij xiise leh ayaan insha allah si toosa usoo dayn doonaa barnaamijkaasna waxaa aan ku wareysan doonaa dhibane Soomaaliyeed oo gurigiisi uu haysto mas'uul ka tirsan ama ka tirsanaa dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana isku soo sharaxay madaxweyne inuu ka noqdo maamul goboleedka Jubbaland arintan qaabka aan uga hadlayno iyo sida aanu walaalkaas Soomaaliyeed u wareysan doono waa mid runtii anaga aan ka nahay dhexdhexaad isla markaana hadafkeena ujeedadeena ay tahay xaqiiqo raadin annaga barnaamijkeeni waxaa ka reeban qabyaalada shakhsi weerarka afxumada waxyaalahaasna ka reeban si nadiif oo waaqici ah ayaan uga hadli doonaa arrintaas fursadna waa siin doonaa daawadayaasha barnaamijkeeni ku taxan si toos ay noo soo wici doonaan oo doctorkaas gurigiisii la haysto
oo hadda ka horna baraha bulshada ka hadlay annaga waxaan rabnaa inaan si gaar ah u wareysano annagoo ulajeedadeena ay tahay xaqiiqa raadin haddaba hanaga baqiilina inaad fikradihiina nala wadaagtaan ra'yigiina noo soo gudbisaan talooyinkiina mar walbo si gaar ah ayaan u tixgelin doonaa hadba fikradaha iyo aragtida iyo su'aalaha aad soo gudbin doontaan marka waxaan dhammaantiin hawada idinka leenahay meel kastoo aad joogtaan wassalaamu calaykum daqiiqad aan ka codsado intaan soo gabagabeyn barnaamijka sida aad sheegtay saaxiib cabdiqaadir zeen aad u mahadsan tahay waxaan kaliya aan ku dar lahaa waxa weeye annaga sida aad sheegtay waxaan nahay dad meediyaha hortaagan barnaamijyo diyaariya qofkaas dhibanaha ana aan tusno bulsho weynta Soomaaliyeed meel bay joogaan inay arrintaas ay ka danqadaan oo xaqiiqa raadin ay tahay oo wixii warkaas ka jiro aan asaga aan ka wareysan doono waxaan kaloo ku dar lahaa oo ah qof walba oo muwaadin oo Soomaali ah oo sidaas oo kale u dhibaataysan ayaa barnaamijkan uu qayb ka noqon karaa oo nagala soo xiriiri doona insha Allah taala sidaas oo kale u wareysan doona mustaqbalka haddii Allah awood u ogolaado ma aha channel ama dad qayb dadka qaarkood u dooda oo dadka qaarkoodna aan yani arrimahooda aanan gelin marka Soomaali weyn ayaan wada doodnaa waa codka shacabka Soomaaliya aan u taaganahay runtii waan u furan tahay qof walba oo dhibana ah oo Soomaali ah barnaamijkan inuu mar walba uu nagala soo qayb galo marka insha Allah taala maadaama aad gabagabadii iyo guntii aan joogno marka waxaan ku soo gabagabeyn doonaa insha Allah taala habeen dambe 8 fiidnimo waqtiga London time waqtiga Muqdisho oo 10 ah inta ka horeyso aniga iyo saaxiibkayga Cabdiqaadir Zeen waxaan idinkaga tagaynaa idinkoo aad iyo aad aan idinkaga mahadcelinayna fikradiina aaraadiina iyo daawashada aadna daawateen waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته